assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi daawadayaal wixii ka dambeeyey hakaan fidaan markii loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda waxaa baraha bulshada ay dadka turkiga ku kulmaan haystay hadalhayn la xiriirta shakhsiyadda hakaan fidaan. arrintaas ayaa waxay tahay mid macquul ah maadaama shakhsigan uu yahay mid sirdoon ah. dadka sirdoonka ayaan iyagu la mid ahayn dadyowga caadiga ah, mana hadda la sixi karo asal ahaantooda iyo meelay ka soo jeedaan iyo shakhsiyaddoodu qofka ay tahay, maadaama ay yihiin dad iyagu caadaystay had iyo gooraale wejiyadooda inay beddelaan, isticmaalaanna wejiya dadyow kaloo iyaga loo ekeysiiyey. waxaaba dhici karta inaadan garan karin wejiga kuu muuqda inuu yahay mid dhaba iyo in kale. waxaynu sooyaalka ku haynaa inay jireen madax badan oo dowlada ka soo taliyey oo iyagu dhowr qof iska dhigi jiray. ankee waxaa jira hogaamiyihii midowga sufiyeti joseph stalin hadda ka hor inuu la kulmay danjiraha dalka maraykanka. ninkaa la kulmay danjiruhuna ma ahayn joseph stalin, waxa uu ahaa nin gashan wejigiisa. kadib markaynu sii daynay barnaamij muuqaalkeenna kan hordhac u ahaa waxaa jiray dadyow arrintaa ka xanaaqay, sheegana inay meelka dhac ku tahay madaxweyne rajab tayyib erdogan, inkastoo dadkeenna soomaalida taageeradoodu mararka qaarkood ay khaldan tahay. kanaalkeennana haddiiba uu jiro kanaal taageersan erdogan iyo dadka turkiga ahi waa kan koowaad, waxaanuna si buuxda u taageersannahay siyaasadaha iyo horumarada kala duwan ee ka socda gudaha dalka turkiga. mana nihin kuwo ka soo horjeeda madaxweyne erdogan, bal iska badaaya habeen iyo maalinba waxaannu ilaahay uga baryeynay inuu guulaysto. sidaasoo ay tahay haddana waxyaabaha xaqiiqada amaba dhici karaa ma aha kuwo indhaha laga qabsan karo. hakaan fidaan waa shakhsi sirdoona, waxaana uu noqon karayaa qofka uu doono. waa ninaan noloshiisa si ciyaara lagu ogaan karin. maalmo uunka horeyay ahayd markaannu idiin sheegnay inuu yahay nin kurdiya. soomaali oo dhammina waxay u taqaaneen ninkan inuu yahay nin turkiya, balse hooyadiisoo keliya ayaa waxay tahay hooyo turkiya. haddaba hadalhaynta ugu badana maalmihii lasoo dhaafay socotay waxay ahayd hakaan fidaan inuu yahay shakhsiga lagu magacaabo cabdalle citli. intaynu ka ognahay cabdalle citli waxa uu geeriyooday sannadku markuu ahaa 1996, waxaana uu ku geeriyooday shil baabuur, waxaana dusha laga saaraa dilkiisa dowladda turkiga uu xilligaa u shaqaynayey. in dadyow badan haatan is yidhaahdaan labadan qof waa hal qof, mana dhiman cabdalle citli ee waa ninka lagu magacaabo hakaan fidaan. waxaa door weyn ka qaatay hay-adda ay u wada shaqaynayeen oo mid ah, labaduba waxay ahaayeen kuwo ka wada shaqeeya hay-adda sirdoonka ee dalka turkiga. cabdalle citli waxa uu ahaa madaxii ururka la yidhaahdo grey welfis oo ah garab hubaysan oo ka tirsan xisbiga midigta foga ee uu hogaamiyo david bijili, oo isagoo ah kan had iyo gooraale codadka guusha siiya madaxweyne rajab tayyib erdogan kuna taageera ajendayaashiisa, maadaama uu yahay erdogan nin ka soo horjeeda reer galbeedka iyo in wax lala qabsado. shakhsigaasu dowladda turkiga waxa uu qaabilsanaan jiray xilliga uu noolaa haddiiba uu dhintay inuu laayo dadka kurdida ee ka soo horjeeda dowladda turkiga. xilliyadii dambese waxa uu bilaabay inuu ka ganacsado maandooriyayaasha, sidoo kalena lacaga ku qaato inuu dadka laayo. waxaa la caddeeyey inuu wadan jiray baasaboor diblomaasi oo dowladda turkigu siisay, sidoo kalena waxa uu kharash ka qaadan jiray wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee dalka. sidaasoy tahay ugu dambeyn waxaa la sheegay dowladda turkigu iyadu inay ahayd tan ka takhallustay shakhsiga kadib markii uu damcay inuu dilo wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka turkiga xilligaas. 1996 ayaana la sheegay inuu ku dhintay shil baabuur, balse arrintu way ka quta dheereed intaas. waxaana la sheegaa in dowladda turkigu ay tahay tan ka dambaysay dilkiisa. ku daahi mayno cabdalle citli qofka uu yahay, waxaanuna ka samaynaynaa barnaamij dhammaystiran isaga iyo weliba ninkii kale isku ururka ahaayeen ee hadda ka hor isku dayey inuu dilo wadaadka ugu sarreeya madhabta kaatolig ee diinta kirishtaanka. balse hadalhaynta jirtay maalmihii lasoo dhaafay ee ahayd cabdalle citli inuu yahay hakaan fidaan ayaynu ku googoosanaynaa barnaamijkeenna, waxna iska weydiinaynaa inay tahay mid suuragal iyo in kale. labadan shakhsi wejiyadooda markaad fiiriso waa kuwo isku mid ah, inkastoo cabdalle citli dhintay 27 sannadood ka hor. xilligaa uu dhintay cabdalle citli waxaa la sheegay inuu ahaa 40 jir, halka hakaan fidaan uu haatan yahay 54 jir. marka la isku dardaro da ahaan muddada waxaa u dhaxaysa da' 10 sano ah. da'da 10 sano ahna waa mid siyaabo badan u qarsoomi kartaa. qofka hadduu noloshiisa isboobo dhafarkana badsado waa mid u ekaanaya inuu jiro da'diisa 10 sano in ka weyn. sidoo kale iraab iyo kosmatiga wejiyada lagu sameeyo ayaa da'da bedeli karaa. waxaa kaloo dhici karta cabdalle citli markuu dhintay in laga been sheegay da'da uu jiray,
inkastaynu ognahay inuu ahaa nin dhallinyaro ah. Soomaalidu waxay tidhaahdaa markii wax laguu sheego ayaad wax garataa. Labada nin in laga shakiyo inay hal qof wada yihiin, sababta ugu weyn oo ka dambaysa waa inay yihiin laba qof oo u wada shaqaynayay hay-adda sirdoonna ah. Dadka sirdoonkaana waa kuwa had iyo gooraale aan la caddayn karin noloshooda rasmiga ah, cidda ay ka soo jeedaan iyo ankii weliba meelaha ay ku nool yihiin. dadyowga u arka arrintan inay foolxumo ku tahay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waa kuwa khaldan siyaasaddan aan waxba ka garanayn. marnaba daawada niyadaada ha ka saareen hakaan fidaan inuu yahay sarkaal sirdoon ah. sidoo kalena Cabdalla Citli, sarkaal sirdoonana shaqada ugu weyn u qabtaa waa inuu dad laayo. taasuna waxay meesha ka saaraysaa gebi ahaanba inaad ka soo qaaddo inuu yahay qof caadi ah, amaba aad siiso ammaan aanu lahayn. ugu dambayn, shakhsiga sirdoonka ahi waa mid u shaqeeya dalkiisa. inkastoo dowladuhu ay faa'iido ku qabaan, haddana ugu dambaynta waxaa jira sirdoonnadaas dowladahoodu qaybay laayaan sida Cabdalla Citli oo kale. isku soo wada duub oo sarkaal sirdoon ahi waa gacan ku dhiigle loo baahan yahay. waxaase la dafiri karin doorka muhiimka uu ka qaatay hakaan fidaan horumarka dalka Turkiga. taasuna waa miday dadka Turkiga oo dhammi abaal weyn uga hayaan, waana tan uu ku mutaystay inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka, lana shaqeeyo madaxweyne aan aaminsanahay inuu yahay madaxweynaha ugu siyaasisan adduunka waqti xaadirkan, Rajab Tayyip Erdogan. daawada haddii aad tahay mid nagu raacsan amaba nagaga soo horjeeda aragtidayada, fadlan nagula wadaag aragtidaada qaab commenti ah. hana ilaawin muuqaalka inaad inoo laygarayso inoona sii sheer garayso. haddii aad tahay daawado isagoo aan weli kanaalka ku xirnayn, fadlan subscribe si aad u daawato muuqaallo uu midba midka uu ka dambeeyo kasii tayo sarreeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.